degmada Celifina gobolka Sanaag waxa maanta ka dhacay kulan ballaaran oo lagaga tashanayo nabad iyo xasiloonida deegaanadaasi degmada Celifina gobolka Sanaag waxaana kulankan ka soo qayb galay waayeel waxgarad maamul mas'uuliyiin iyo haween iyo haldoorka deegaanadaasi degmada Celifina gobolka Sanaag waxayna dhamaantood hoosta ka xariiqeen in Celifina iyo deegaanadooda nabad la helo sidii magaaladu nabadgeliyo aynu ugu helneen ugu noolaanahay haddii baash faraa ka baxdo oo ay lunto qofna mas'uul noqon maayo qofna qurux badnaan maayo dad qaxayo bay hoofabeen noqoneen ilaahay naga hayo oo qorigu hadduu dibadda u soo baxo qarqarka ninka fuulo wixii la sugaa waa inuu xabadi ka dhacdo xabadi hadday dhacdona fadhiyi mayno marka waxa nala suuragal ahaan weeyay haddaan nahay golaha deegaanka in yar oo qeyral mas'uul oo khamri cabsani maatadana qaxiyo annagana qaxiyo magaaladuna saa ku baabado loo qaayaco marka waxaan nidhi intii aan la qaxin oo xabadu qoriga ka bixin waa qoriga sayna isaga xareynaa oo meesha suugu celina waxay noqoyo maanta dawlad xereynaysa u xog sheeganaysa ma jirto oo waynu ognahay maamulkii dawladeed iyo laamihii amniga awoodda ay leeyihiin ciidan inoo joogo waynu ognahay ilaahay nagama keenee hadday saacadda ka bilaabato siday u dhici jirtay oo kale dib ugu noqoto cid imanaysa iyo gaari soo guuxaya wallahi inaan jiro isaaq inoo soo gurmanayaana ma jiro Somaliland ciidan ka socdo inoo imanayaana ma jiro waxa lagu qaban karayaa guriga laga soo qaadayo hooyada joogto oo tiraado hooyo qoriga dhig kow inanta walaasha ay joogto tiraado walaal qoriga dhig aabaha oo yiraahdo war qoriga ii dhig maamulka oo yiraahdo war qoriga dhig hebelow runtii waa ayaan daro ummaddu dalaayada waxa la yaahdaa daamo la qabtay leedahay ee daba la qabto male runtii inteennani markaynu isku fikirnahay oo isku qofnahay oo aynu danta guud wada arkayno oo aynu leenahay halkaas wax ka qaloocan yihiin ee maanta halka aynu gufayno inta kale reer Celif weyn oo inagoo kale waxaan qabaa xaalad kasta oo qalafsan oo degmadani ku jirto inteena golaha fadhida iyo inta inaga maqan ee inala macaa ee inala fikira ee xaaladda jirta inagala danqanaysa inuu dhamaan haddayna ka qaban oo ninka noocaas iska qaban oo ka dhibta wada waynu ognahay xogaal baynu nahay suuragal ma aha inaynu aan xukuma hayna aynaan meel uga soo wada jeesan wallahi waxaan ogahay in halkeedu ku noqonayso oo aynu sideeni labada daraf midkeen badaraf isa soo taagay maanta qof reer Celifina wuxuu isa qaba inuu qaxo ama inuu dhibaato Celifin ka sameeyaa miyay jirtaa inagu dhex jirtaa intiina waxaan u wada baahanahay dhamaanteen dumarka iyo ragaba inaynu wax si wada jira wax u wada qabno marka waxaan u baahanahay islaanta hooyada ay guriga joogta iyo odayga guriga jooga iyo inanka guriga jooga iyo inanta guriga joogtaaba inay aqal saliim oo Celifin maanta kaga tariso dhamaanteen inagoo aan kala lahayn qabiil isku meel baan ku wada fadhinaa hadaynu nahay dhamaan reer Celifin meel lama kala lihin meesheen wada qaxayno meel baan wada qaxaynaa meesheen wada joogayno meel wada jooganaa ilaa inta qiyaamuhu dhacayo inagoo isku wada dhan waxaan rabnaa in wax laga qabto oo dhinac looga soo wajeesto qofka fidnoolaha ah runtii mahadcelinta haweenweynaha dhammaan ay ka soo qayb galeen oo aan lahayn haweenka dhammaan uroodii ii wada muuqda dhammaantood waayeelkii oo oqaashi ah waxgaradkii aqoonyahankii kale qurbo joog inooga yimi laftigooda dibadda oo reer Celifina ah oo yar xusanayo kulli halkuna leh dhammaantood waxay u joogaan oo maanta marqaati ka noqonayaan inaan maamulku u yaraysan hadal wixii dhacaya daba dhacaya laakiin inaan la oran doonin maamulkii markaa joogay way nasiib xumaayeen waa la oranayaa laakiin way taab gaabnaayeen waxba waa sheegi waayeen oo ummadii bay nabadgelyo kala hadli waayeen waxaan ilaahay marag gashanaya inaan oran doonin waxaanu idin leenahay nabadgelyada ka shaqeeya oo nabadgelyada ilaaliya oo aynu ka wada shaqeyno oo haddaydan idinku nagala shaqeyn oo aydan ka xun noo sheegin oo aydan nala wadin ma soconayso far kaliya fool ma dhaqayo Soomaaliya tiraahdaye inoo socon mayso meel wacan bay inala maraysi wax kasta hadda ceene meel wacan bay marayso ka soo kabasho leh waxa lagu jiro horumar waxa lagu jiro qurxin waxa lagu jiro si dardargelin waxaan la qabaa haddii
islaamku soo sheegayso inanku soo sheegayo qofka khamriilaha ah oo ka xiga qofka ugu horeeya qabanaya intaan hadduu yimaado ciday doonaan ha ahaadeen waa kaalay ninkan khamriilaha ee qoyskayga ama tolka ama degaanka ah ila qabta oo de sadaqada gurigaaga laga bilaabayo ka wardiga u dhaho ila qabta anu waxaan qabaa inaan cidla diiday wixii nabadgelyada xumaynaya inaynu ka wada hadalno inagoo heer cilafweyna mayna sugno saddex qodob baan ugu muhiimsan mid waxa weeye qorigaa dibadda u soo baxay haddii qori la arko nabadgelyo darana waa la arkay sidii waayeelku ka wada dhawaajiyey iyo cid kastoo halkan ka hadashay waxaynu wada ballan qaadnay haddaynu heer cilafweyna inaynu qorigaas ka xirayn war ficilkii aynu ku darabaynu leeno hadal yaana inaga noqon midka labaadna waa khamriga inanka keenaana waa inankeenii gaariga soo qaadaana waa gaarigeenii ka cabaana waa inankeenii intaba aynu qabano oo laamaha dawladda iyo nabadgelyada iyo ciidanka booliska aynu gacan ka siino midka saddexeeya waxa weeyaan warka propaganda ah ee habeenkii la isu gudinayo ee magaalada kala qaxinayana meesha laga saaro cilafweyn waa tiindhaxaadka nabadgelyada waanu uga mahad celinaynaa haddaanu maamulka sidaa ay isugu duuban yihiin haddaynu ragoo isugu duubnaan lahayna wax allaale cilifin ka xumaan laha ma jiro laakiinse waxaan leeyahay war weecsanaanta iyo qalooca xagga haweenka ma yaalla ee xagga raggu yaallaa aynu toosin cilafweyn ahaan hadday nabadgelyadu dhadhana ka tahay waa inaynu ahaano kuwo isku duuban oo aan kala qaybsanaan ilaa maanta midhablaya la tagay maanta midhablaya la tagay inagaan qabiil iyo oday iyo inan iyo inantaana kala lahayn hooyooyin baanu maqaaxyaan dhibaataa uma hayo carruurahay waxaan ku kordhay maqaaxyo ku taasheegaya anigu carruurtooda maqaaxa koriya dhibaatada taag ma hayo walaan qaadana iska badda waayo dee kana waa ka dhashay kaala waa maxaan ba qaadana kana wax iga dhagaysan maayo kaasi wax iga dhagaysan maaye hadday wax iga dhagaysanayaan waxaan leeyahay war intaad ilaahay ka baqdaan deegaankan ceelafweyn dad ku nool intuu ilaahay ka baqo rag iyo dumar war gacmahaan isqabsano oo nabad baa wax lagu cunayo oo nabad baa lagu shaqaysanaya oo nabad baa lagu qurux badan yahay anigiisa u sheegno oo maamulka u soo gudbino ha ahaada inaga isu askara maanta inaga isu waayeela inaga nabadana ilaga raba inaynu adkaysano ilaahayna subxaanahu watacaala hayno odayada mid baa leeyahay waa run odayadu way daareen xumaantii dhacdee kasta ee degmada ka dhacdana iyagaa la saaraa sababtoo ah dee ilaahay marka hore uga dhigay waayeel iyo madax ayaa marka hore mahad iskale laakiinse waxay ahayd inaga niyad jabine inay adkaystaan oo wax kastoo yimaada dhabarka u dhigaan oo ayan ka biqin oo ayan oran waa layna eedaynaya oo oran maxaan dhahay anigu waan daalay oo maalinkan maanta dhibteeda batay cimaamada waa tuuraya cimaamadaha aad tuuraysaan horta ha tuurinina leeyahay qurbajooga markaa fariintaan u diraya waxay tahay kaalinteennii ayaa meesha ka maqan tii nabadgelyada tii dhaqaalaha tii waxbarashada tii dhinac kastaba ha noqotee qodob xaggii markaan halka joogaan bisha saddexaad baa i socdaa run ahaantiina waa markii koowaad intaa saddexdaa bilood aan habeenkii dawlad xabadaha aan arkayay xabadaha meesha ka dhacayay waxaad moodaa dhinac waxaynu ka salsaloonaa xamar baynu ka salsaloonaa oo aad baa ugu mahadsantihiin xamar baa la yidhi waxaa la dhisay waxaa habeen daar dhan baa dam inagu waxba way laguma dumaane madfac dhan baa soo dhacaya dunuun dhan baa baaba'aysa subax baad arkaysaa islaamo mafiqasito iyo meesha maanta subax baa la dhisayo waxyaabahan aad ula yaabay aan idinku mahad celinayay aan idinku ammaanaya waxa weeye wax ka soo dhaca xalal dhilay haddana berrinta waxaad arkaysaa magaaladu isla saacadaha ka bacdi magaaladu aad muddo xoogaa waa la bislaaday waa la daalay waxaan leeyahay sidaa kusii wada walbajoogna waxaan leeyahay balaayo badan meesha ma jirtee adeer soo dhawaado qaybtiinni baa maqane mid kasta oo khabriile ah ha la qabto dee hana la isugu yeero waxaa ka baxaa la yidhaahdo si loo garanayo hadday ka bixi waayaan oo joojin waayaan ha la qabto qorigaa timi qorigii de khamriilii baa sitaa khamrigana iyagaa kala iibsada dee waxaan leeyahay waayeelka dee qorigeena khamraabaa la siisanaya horta qorigeena aan la soo wareegin dumarro qori ma qaato waaye la qori ma qaato ma rido laakiin inankeenni baa rida oo habartuna dhashay odayguna dhalay oo mas-uul ka yahay qorigana cid kale male odaygaa leh in badanna halkan waa kaga hadalay qorigaa in laga rido inanka oo laga qabto oo odaygu qorigiisa qabsado ayaa waajiba war waxaynu nahay rixim waxaynu nahay dad wada dhashay
waxaynu nahay dad isdhalay waxaynu nahay dadaan meel kala tegayn waxaynu nahay kuwii qabriga lagu wada ridayey waxaynu nahay kuwa xisaab isugu iman doona waxaynu nahay kuwa aakhire iyo adduunka labadaba xisaabtamaya labadaba waa xisaabtamayna waxaynu isnidhi iyo waxaynu isyeellay iyo waxa aynu uurka isugu hayno iyo waxaynu isha isugu hayno iyo waxaynu aqalka hoostiisa iska leenahay intaba waa ku xisaabtamayna war waxaan idin leeyahay halla tanaasulo walba calooshiisa ilaahay baa og adigu labadaa reer uma kala faaliyo markasta dee rasaastu dhacdo hadda ciidahan soo carara war waxa hal kelmad baan idin weydiinaya war horta ninkii waxa loo geystayo haddaad samirto miyaad gunooli mada weeyati ka wax loo geystay hadduu samro gumoobi maayo wuxuu ka qaadanayaa dembi dhaaf iyo guul buu qaadanaya war wax geystayo kii wax geystay haddaad soo qabato miyaad gunooli mada weeyaan isagoo bal labada kelmadoodna hal isku barbardhig taas waa taayir qaadano xaajada waxaanu qoriga inaga ale inanka marka la soo qabto ee halkaa la keeno inanka 20 oday baa ka daba yimaada waxa loo soo xirana waa dib aan ka waantoono taa